maxay dumarku ku taageeraan maxaabiista quruxda badan. maanta waxaanu muuqaalkeena kaga hadli doonaa arrinta maxbuus Cameron oo xukunkiisu muran badan ka dhaliyay baraha bulshada iyo sidoo kale kiisas la mid ah oo soo maray taariikhda adduunka. waxaa maalmihii u dambeeyay bulshada adduunka gaar ahaan wadamada Carabta iyo Soomaalida qabsaday arrinka xukunka Cameron Herin oo lagu xukumay muddo 24 sanadood ah. waxa la yaab noqotay in kadib markii la faafiyay muuqaal laga duubay markii xukunka lagu ridayay uu si weyn ugu faafay baraha bulshada, sidoo kale ay aad uga falceliyeen haweenku iyagoo ku doonayay inuu yahay wiil dhalinyaro ah oo aad u qurux badan oo aan mutaysan xukunkaas muddada dheer leh. Cameron Herin kiiska lagu soo xiray ayaa ahaa inuu gaadhsiiyay hooyo iyo ilmaheed sanadkii 2018 isagoo ku xafaraya gaadhi noociisu yahay Ford Mustang. mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee Florida ayuu jiray hooyadan iyo ilmaheeda yar oo ahayd gabadh 12 bilood jirta, isla markiina ay naftu ka baxday. waxay maxkamaddu sugtay intuu Cameron gaadhiyo da'da 12 sano si loogu rido xukunka, waxaana afkiisa ka qirtay inuu geystay dilka foosho xun leh, sidoo kalena lagu riday xukunkii uu ku habboonaa. wuxuu Twitterka dalka Sacuudiga ka noqday hashtag loogu isticmaalka badnaa maalmihii u dambeeyay. ma aha kaliya ta Cameron ee dhowr jeer oo kale ayaa la arkay xaalado la mid ah oo dadku taageereen ama jeclaadeen dambiilayaal naf bilaadan qudha ka jaray waliba si baleeda. tusaale ahaan dilaagii caanka ahaa ee Ted Bundy oo dil iyo kufsi u geystay in ka badan 30 qof oo dumar ah ayay dumar badani ku doodeen in la sii daayo ninkan maadaama uu yahay halyey. baladba garan sababta ay ugu hilin karaan ninkan. waxaanay soo xidheen maalintii maxkamaddu xukumaysay dharka dumarkii uu hore u laayay. qaarna waxay u soo direen fariimo badan oo ay ugu soo bandhigayaan inuu guursado, halka qaar kalena ay u soo direen sawirro ay qaawan yihiin. xataa gabadh aad u da'yareed oo la odhan jiray Carol Ambon ayaa ku guursatay xabsiga intii uu sugayay xukunka dilka ah, waxaana u dhashay hal gabadh inta aan lagu dilin kursiga korontada sanadkii 1989. Charles Mills Manson oo ahaa hogaamiyaha koox la odhan jiray caylada Manson oo isaguna sidoo kale xaaladan oo kale ku dhacday isagoo nolosha ka dhameeyay 7 qof. waxa uu helay dumar badan oo ka helay quruxdiisa, waxaana dumarka ugu caansanayd Star Burton oo ahayd 17 jir, sidoo kalena u soo bandhigtay inuu guursado waana ka aqbalay isagoo ku jira jeelka. waxa uu dhintay sanadii 2017 isagoo 28 jir ah. Isabella Guzman oo hooyadeed ku dhufatay 79 midiyood ayaa iyadana qisadeeda iyo sawirradooda ay aad ugu faafiyeen social media iyadoo raggu ku andacoonayeen in laga baajiyo xukunka maxkamadda quruxdeeda darteed. da'deedu markay ahayd 18 jir ee sanadkii hore ayay gashay isbitaal dhimirka ah iyadoo aan gaadhin da'dii xukunka lagu ridi lahaa. isna Richard Ramirez oo ahaa mid ka mid ah dilaayadii ugu khatarta badnaa 80-aadkii qarnigii tagay, isagoo dadka u dili jiray bilaa macniyo inuu ka dhigto wax uu ku maadaysto. waxa uu ka geystay dilal fara badan oo isxigxiga magaalada Mareykanka ee Los Angeles. dilalkaas oo inta la og yahay ay ahaayeen 13 qof oo isugu jira rag iyo dumar iyo carruur, isagoo jirjiri jiray meydadkooda. laakiin waxa uu qaadan waa noqotay markii jeelka loogu keenay waraaqa ama fariimo fara badan oo ay soo direen dumar doonaya inuu guursado, iyagoo sheegay inuu yahay nin qurux badan oo geesi ah, dhigiisana aan laga heli karin ragga ku nool magaalada Los Angeles. waxaana ugu caansanayd saxafiyad la odhan jiray Doran Lewy oo u soo dirtay 75 warqadood oo ay kaga codsanayso inuu guursado, isagoo ka aqbalay sanadkii 1996. waxaana arooskooda ka soo qayb galay raggii ay isku xabsiga ahaayeen oo dhammaantood ahaa rag dilaaya ah. haddaba waa su'aalo ra'yigaaga miyay quruxda noqon karaysaa mid dambiilaha lagaga sii dayn karo xukun dil ah isagoo dambiga ku cad yahay, falxumaduna in eedeysanaha lagu xukumi karo dil xataa haddii aanu dambiga ku cadayn? fadlan ra'yigaaga ama faaladaada noogu reeb sanduuqa faalooyinka.